السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن صاحبي المركز تاع joogtaan daafaha dacalada caalamka maanta waxaan idin dulmari doonaa wararkii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa dalka Jarmalka. Maanta bishu waa bishii saddexaad sodonkeedii ama sodonkii bishii Maarso sanada 2021 dhowr war oo kala duwan oo ku saabsan Yurub iyo dalka Jarmalka ayaa idin dulmari doonaa insha Allah. Halkaad iga daawanaysaan waa Axmed Baqaye, soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay hadda hore nooga mid ahayna mar kale soo dhawow. haddaan ku bilowno magaalada Berlin horta qodobo waaweyn ayaan warkeena kusoo qaadan doonaa dhanka qaxoontiga ku saabsan, dhanka xaaladda coronavirus ku saabsan, dhanka bandowga ku saabsan, dhanka arrimaha siyaasadda ku saabsan iyo gobollo kala duwan oo iyaga laftoodu markaasi dib u xidhaya dalka iyo Angela Merkel iyo maamulada oo weli is haysta dhanka talaalka AstraZeneca oo la filayo in haddana mar kale dib looga mamnuuco dalka Jarmalka. Gobollada qaar iyagu mamnuucayba ayaynu eegi doonaa magaalooyin waaweyn oo Jarmalka ka mid ah. أنا كنت بقول إنه مقالة برلين عاصمة دالك جرمالك وسيرة عافمات كإمام الجبلات برلين أي شاعسين جوتشيسي إن أي تلال كأستراتينيك قاتان ذاتك دأدو دكيرت هاي لحدن شركة وحا هراء الشاعية عسبتال كوين برلين شاقين إن آني تلال كان سيندونين شغالها عسبتال كاسي وسيرة وحا الشاعتين إن تلال كأستراتينيك ودباتو وين كوهايو دمركا دأدو udhaxayso 20 jirada 30 jirada ilaa iyo 50 jirada inay dhibaato u keento isla markaasina side effectiga talaalkan AstraZeneca uu leeyahay uu dhibaato badan u keenayo isla markaasina oo aad u saameynayo dumarka da'ahaasi 20 jir ilaa 50 jirka jira. saadaradeedna ay joojisay in gobolkaasi hadda kadib lagu isticmaalo talaalka AstraZeneca khaasatan la siiyo dadka da'doodu 60 jirka ka yar tahay. waa tahay Jarmalka si aan ognahay talaalka AstraZeneca Ingiriisku soo saaray waxa ugu geeriyaday 10 qof. magaalada München caasimada gobolka Bayer ayaa iyaguna joojisay isticmaalka talaalka AstraZeneca. khabiirka dhanka operasada dalka Jarmalka magaciisa la yiraahdo Lutabach ayaa isna codsaday in talaalka AstraZeneca laga joojiyo in la siiyo dadka da'doodu ka yar tahay 55 jirka. qodob kale ayaynu eegi doonaa warbaahinta Jarmalka iyo kuwa caalamka ayaa ka hadlaya muranka u dhaxeeya Angela Merkel iyo Laschet oo madaxweynaha gobolka Nordrhein-Westfalen waxayna sheegeen arrintani inay faa'iido ugu jirto madaxweynaha gobolka Bayer Hersuda. haddaba warbixin uu qoray wargeyska Welt ayuu wax uga dhigay marka Merkel iyo Laschet isqabsadaan Sauda ayaa guuleysanaya. Merkel iyadu waxay rabtaa oo ay doonaysaa in heshiiska ay galeen maamulada iyo iyadu in la fuliyo heshiiskii ugu dambeeyay ay wada galeen ay wada saxeen in heshiiskaas la hirgeliyo ayay qabtaa. waxay leedahay heshiiskan wada galay hirgeliya oo sidan u heshiinay ugu dhaqma ama go'aanka ana gacanteeda ku qabanaya isla markaasina dawladda federaalka ayaa go'aanada fulin doonta, booliska federaalka ayaa fulin doona, dawladda aniga ayaa amarkayga ku shaqeyn doonta. haddii kale xor baa idin ka dhigay awood baa idin siiyey, awoodda waxaynu ku heshiinay ku dhaqma. dhanka Laschet isagu isdifaacay waxaanu sheegay in arrinta siyaasadda uu wato isla markaasina go'aanada uu bedelay ay tahay mid ay dan ugu jirto shacabka. weli waxaa jirta iskala jiidasho iyo inay iskala jiidanayaan dhanka siyaasiyiinta. Laschet waxa uu doonayaa inuu keeno siyaasad ka duwan tii Merkel si xisbiga uu markaasi hoggaanka u yahay hadda uu cod badan u helo maadaama codkiisa uu hoos u dhacayo. dhanka Sauda madaxweynaha gobolka Bayer isagu xisbigiisu aad uma xuma oo waa xisbi hal gobol oo kaliya ah, gobolka Bayer oo kaliya ah, laakiin waxa uu doonayaa inuu dalkoo dhan maamulo 4 sano soo socota isla markaasina booska Angela Merkel bedelo. si uu booskaas u bedelana waa inuu Laschet oo 15 gobol xisbigiisu maamulo inuu booska kala wareego. marka eryad ayaa jira. madaxweynaha Bayer isagu markasta waxay Angela tiri baa saxa ayuu taagan yahay. waxa laala waxay sheegtay baa saxa, waxay tiri baa saxa, sidee tiri baa la yeelayaa, sidaas lagu soconayaa. ninkan siyaasad ka duwan ayuu wataa. wuxuu leeyahay war Angela Merkel maadaama iyadoo joogtay xisbiga hoos u yara dhacay markaan wax ka bedelo. adigu arrinta siyaasadda iyo wixii ka soo kordha markasta halkan ayaa kala socon doontaan insha Allah. qodobadeena kale ayaynu ku sii soconaynaa. warbixin aan galabta idiin soo gudbiyay adigu saacad ilaa saacad iyo bar ka hor haddii aad daawan halkan baa idiin soo dhigaya insha Allah. aad ka daawan kartid in dawladda aan dhahday wadamada midowga Yurub ay soo saareen go'aan cadeynaya in wadan kasta oo ku jira 13 wadan ay shaaciyeen in wadan kasta oo 13 ka wadan kamida dadkiisa uu ogolaado in la tarxiilo. waxaad ogtihiin wadamo badan oo Soomaaliya kamid tahay in aan dadka loo tarxiili kareyn, dawladdu aan ogolayn in la tarxiilo. laakiin iminka go'aano adag ayay ku soo rogeen. laba choice oo kaliya laba qodob oo kaliya ay siiyeen, mid soo gal ama ka kala soo gal. marka mid kastana shuruudihiisa ayuu wataa. waxa lagu yiri haddii aad xagaaga ka hor
ogolaan weydaan ama ilaa xagaaga ayaa waqti la siiyey ilaa xagaaga haddaad ogolaan weydaan inaad idiisa tarxiilo qof kastoo tarxiil diyaar u ah waxaan cunaqabateyn ka saari doonaa dhanka socdyada dhanka diblomaasiyiinta iyo safarada siyaasiyiinta ayaan fiisayaashooda culays ka dhigi doonaa waqti dheer ka dhigi doonaa fiisayaasha ayaanu qaalid garayn doonaa sidoo kale waxbarashada iyo guurka iyo waxyaabahaasoo dhan ayaanu idinku adkayn doonaa waa haddii aad diidaan haddaad ogolaataanna shacabkiina ayaanu ogolaan doonaa albaabada u furi doonaa inay ku dalxiisaan yurub fiisayaasha ayaan waqti dheer ka dhigi doonaa waxyaaba badan baa idiin samayn doonaa waa haddii aad ogolaataan marka hadday ogolaadaan dadka xaggaa jooga oo loo ogolanaya inay dalxiis ku yimaadaan halkan laakiin waxaa fududaanaysa in si fudud diyaarad loo saaro qof kastoo u diyaar ah in la tarxiilo taasina dhibaatadeeda ayay leedahay haddaba 13 waddan waxaa ka mid ah waddanka Ciraaq, Iran, Libya, Senegal, Soomaaliya, Mali, Gambia, Cameroon, Republic of Congo, Masar, Eritrea, Ethiopia iyo Guinea-Bissau intaasoo waddan ayay sheegeen laakiin qof kasta lama tarxiilayo haddaba niyadda ku haya kulli warbixinta waa idiin faahfaahiyey xagga sare aad ka heli kartaa dhanka hoosena waa idiin soo dhigayaa warbixinta waan faahfaahiyey iminka qof kasta lama tarxiilayo waxaa la tarxiilaya kaliya qofkii diyaar tarxiiso ah iyo qofkii mustaqbalka markaasi tarxiil soo dhaco iminka waxaan eegi doonaa qiso kale oo muhiima runtii aadna u cajiib badan waa wiil magaciisa la hado taariq waa Syrian sanadkii 2015 ayuu dalka Jarmalka yimi haddana waxaa isu sharaxaya baarlamaanka federaalka ee Jarmalka waa qiso runtii cajiiba ninkaasi ta kale cajiibka waxaa tahay taariikh 15 Jarmalka uu yimi laakiin ma haysto dhalashada Jarmal macnaha Jarmal maaha haddana baarlamaanka isu sharaxay weli waa qaxoonti waxa uu doonaya inuu noqdo qaxoontiga ugu horreeyay ee isagoo qaxoontiya baarlamaanka gala bal qisadiisa ayaan ka warrami doonaa taariikh waa qaxoonti Syrian ah oo doonaya inuu isu sharaxo baarlamaanka Jarmalka si uu u helo codka ajaanibta waxaanu ka sharaxnaa magaalada Oberhausen ee gobolka North Rhine-Westphalia mana haysto dhalashada Jarmalka xisbigu ka sharaxay yahay uu doonaya inuu ka sharaxmano waa xisbiga Grone ama akhtarka warbaahinta Feld.de ayaa qortay warbixin ay ciwaan uga dhigtay qaxoontigii rabay in uu baarlamaanka isu sharaxo uu iska dhaafay kadib markii loo hanjabay marka hanjabada fara badan ayaa ninkaasi soo wajahay oo taariikh ah oo qoyskiisa isaga iyo naftiisa ayaa loo hanjabay cunsuriyiin fara badan ayaa markaa handadaad iyo hanjabaad kusoo qaaday taariikh ma haysto dhalashada Jarmalka bishii 11 ee sanadka 2020 ee dhaaftay ayuu xaraystay dhalashadiisa ilaa hadda looma soo jawaabin oo looma diidin lamana yeelin laakiin intuu sugayay ayuu hawsha ololaha bilaabay adigu dacwadiisa uu xaraystay wuxuu doonayay inuu sharaxo xisbigu iska tirsanaa hawshiisa uu watay kadibna waxaa soo weeraray hanjabaado fara badan cunsuriyiintii ayaa weerar ku soo qaaday oo hanjabaad ay loo soo hanjabay hanjabaadda isaga kaliya looma soo hanjabin waxa looga hanjabay in la waxyeelayn doono ehelkiisa saaxiibadiisa markaasi u dhow in xitaa qaxoontiga kala dhibaato loo geysta ayuu ka cabsaday saa daraadeed doorashadii uu iskaga hadhay wuxuu yidhi faa'iidadan isleeyahay qaxoontiga uu qabo iyo codka halkaa tag waxa iga khatar badan in dhibaato loo geysto ehelkayga iyo saaxiibada iyo markaa dadkaasi asxaabta aanu nahay oo nafahooda khatar aan geliyo ayaa iga xun inaan cod helo marka intaan cod raadsan lahaa dadkaasi naftooda ayaan khatar gelin saasay markaa faraha uga qaaday doorashadii cunsuriyiintina ay markaasi go'aan ujeedada ay lahaayeen u gaadheen inkastoo aanu soo gaadhin oo aanu helin markaasi dhalashadii laakiin shuruudaheedii uu buuxiyey kaliya wuxuu rabay inuu marka loo soo jawaabo uu soo qaato laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay dhibaato kaloo ka weyn ayaa dhacday oo markaasi albaabada kasii xidhay qodobkeenni maanta intaasoo kusoo fiiraynaa taariikhna waxaan rajaynaynaa in dhowaan aanu aragno insha allah qaxoonti kale oo ku dhiirada iyaguna laftoodu iyagoona dhalasho haysan isku dayana baarlamaanka tagaan haddaad waa samayn kartaa baarlamaanka waa ka mid noqon kartaa adigoo qaxoontiya laakiin waxaad u baahan tahay inaad dhalashada Jarmalka haysatid maalinta dhalashada qaadatid ayaa toos xildhibaan noqonaysaa laakiin markaa isagu intaa doorashada dhicin ka hor ayuu rajeynaya inuu soo dhacday ilaa hadda uma soo dhicin bal markii uu soo dhacday qisadiisu halka ku dambayso ayaan idinla soo wadaagi doonaa walaalkiin Axmed Buqayd la saaxiibayaal maca salaama